madaxweynaha maamulka Khaatamo State Professor Cali Khaliif Galeer iyo qaar ka mid ah golihiisa wasaaradda Khaatamo ayaa maanta oo Jimcaha waxay kulan la qaateen culimo awdiinka ku dhaqan gobolka Cayn dhammaanba fariiqooyinka ay ka kooban yihiin waxaana kulankan muhiimadiisu ay ku saabsanayd joogitaanka ay joogaan ciidamada Soomaaliland deegaano fara badan oo ka tirsan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn iyo waliba waxa ay diinta Islaamka ka qabto in duulaan lagu soo qaado dhul kale oo dad kale aysan lahayn kulankan ugu horreyn waxaa ka hadlay madaxweynaha Khaatamo isagoo sharaxay culimada sababta ay ugu hadli waayeen culimadu doorka ay ku leeyihiin duulaanka lagu soo qaaday deegaanada Khaatamo State ciidamada Soomaaliland yaa intii muddo abadunkeena ku goolaftamay magaala madaxdii haysta hadda muddo waxaan u malaynayaa ugu yaraan 8 sano iyo saay inay balaascanood haystaan inay meeshii ay doonaan ciidamadooda ku tagayaan oo dadka ugu cagajugleynayaan oo ixtilaal maaragtay askari ay dhulka ku haystaan haddana kuwa ugu fog ama inoogu dhowey aagaa werwer iyo meesha la yiraahdo kala bayd bay joogaan anagu waxaan ka badin weynay inaan culimo isu nimaadno in dadka waxaad moodaa siyaalaha qaarkood in tashwiish ay ku jirto dadka dhulkan u dhashay cid kala duulimaad kuma aha dhulkooda ma rabaan khayraadkooda ma rabaan ardigooda ma rabaan meelay ku duulayaan oo lagu sheegay ma ay jirto waxaan ka maarmi weynay culimada awalba qaar ku dhiiran jiray waa jiraan oo masaajidada iyo xafladaha warkaa ka lahaa oo lahaa qadiyadan dadka haysataa waa qadiyad xaq ah dadkuna hadday ka gilgishaan oo iska daafacaan waxay u dagaalamayaan oo dagaalkooda haddayba dagaal huliyaan waxayba ay tahay wixii ka dhintay horana waa shuhadaa waxa hadda diyaar inay u dhintaanna waa shuhadaa annagu haddaanu siyaasad iyo maamul iyo howlaha qaabilsanayn taasaanu ka badin weynay inaynu maanta isugu nimaano waa ognahay culimadu siyaalaad moodaa inay howlahooda u kala wadwataan in qolaba siyaala wax lagu tilmaamo laakiin waxay guddigood ka dhaxeeyaa dee waa ducaad waa dad uun dacwadda wada qolaba say doonta ha wade العلماء ورثة الأنبياء يعني ماشي حنكي النبي عليه الصلاة وهذا حق بقول الوضع إذا بين أوتك ومدول بكلمة مناسب كفوة آتي هذا أنا قد بانوارك إن هذا نشيخ أنتو تقولي ورانا سورة داي آية داي هيو أو تيالكي محب ما هدويه سكتاي حتى قرر كلوت جيسان الليل يوري ما ريال وهالكن واحد يقول لي أنا إنسان عم تذكر هالكن تجن وحالا يديش جينا أن نقول جود مصر وتأكدوا السابلية أما خبرت على إنه بحطوا إلى هذا مصر نالكود ومصر تأخسين تولي غيربي جود هالكن تجن يتذكر ولا لا ومصر أنا وحيلا كليه وحويه deegaankayaga aan noqono kuwa masiirkiisa ka taliya sida deegaanadii inta hanateen haddana aad hooyaysaysaan bayna dad kale war waxa weeyaan haddii qaar culimada madaxweyne waan ahayaan muftiga culimada oo qaar baa marmar masaladu waxay kaga xirmaysaa sababta inay soo arkaan nimanka go'aan qaadashada waxay kaga xirmaysaa inay soo arkaan balnoqda oo guryihiin ku noqdo si silmi hadda hadday diidaan baan u malaynayaa in markaa mikrofoonka qaadanayaan leeyahay haddaba laa baasa laha in lagu bilaabo soo sidaa ma horay alam tara shiikhoo soo dhaaftay mar hore inoo ekeetaa laga yimi marka anway culimada waxaan rabaa diid iyo ismaad bilna ahayn dadka cadowga ah inay ku soo duuliyeen ee dhulkeen intii badnayd haysta imikana intii hadhay ku soo socda bal shareecadu inay qabto muxuu ahaa dee mowqifka ay bal ka qabto inay leedahay ha loo seexdo oo ha la daayo oo hayna wada qabsadeen
iyo inay leedahay waa daalimiin ku soo duulay dalka hal la iska qabto kullimayo arrintaa mowqif cad baa ka culimadu waxay sheegeen inay bannaan tahay qofkii ku soo duula gurigaaga inaad iska celiso waxayna maamulka khaatimo ugu baaqeen in ay iska difaacaan ciidamada Soomaaliya ku soo duulay deegaano fara badan oo ka mid ah deegaanada Khaatimo State qof muslima waynu wada ognahay in naftiisa maalkiisa diintiisa maxaarimtiisa ilaahay inuu ka xarimay ku duulmeeyayna ku duuli waayo annagu culimadu reemaysa ilaahay baa reebay sunnada rasuulka reebtay inuu ka xaramtinimeysay taasi waa qodob halkaas ayna ka tahay ahadiistu waynu diinta waynu wada aragnay oo diin laba koobini dadkani waa dad hadda diin loogu yeeray culimo ahaan turuhu waynaga aragnado man qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون حريمه فهو شهيد أنا أقول وحن لا لا وح إلهي إلى إلى أين راعن عندنا يينا كدولي نفتور يمال كذا يا محارم كذا تيم يا شاعين تقول وحي أنا كسر هاتلنا تدين تين آخرين المستفاعنا مين يسلمنا وعمل والماذا هذا كجبتي والماذا لديه afka yan laga duwaani waa firqooy sida madaxweynuhu sheegay firqooy badan ilaa nabiga wafaadkiisii waa jiray intii la soo maaydo waynu garanaynaa kutabaha wax badan baynu ka arag haddaba firqooyinka waxdee ka dhaxeeyo oo deegaan oo aynu wada leenahay baa jira iyo deegaan baynu deeyna isdiibin أنا قلت ما وين أنا ليه هذا شيخ يو تستور كيسي ونوسي ليان قصعنا دولة دي تبعضها إلى أن نبتقل يسينه إلى أن نرد عينه إلى أن خلاف إلى أوبر من الحق إلى يتهي تبارنا كشغينا ما نتكلم كشغينا مين سادنا ومفر عدنا تبوينا قالوا وانا نوضا مفر هرجيسنا نوضا مفر يلا بابا نوضا مفر تاير هلكا نوتو تان امسنا ku qanacsan sida xaqiiqda teela yar laga dayrinayo dayrana ma wanaag bay mudan tahay ducay mudan tahay la shaqayn bay mudan tahay waana aaminsan yara wax loo ah ana wax ku noqonayo oo magacayaga eta waxa la yiraahdaa magaciisa ku dagaala wixii loo oran jiray eta waan ku jiraa cidiya ku dagaala kaas aan ku jiraa khaatibaan u dagaalanay واكو waxaan leedahay deeninkii ama argeysa saad uga furan yahay ama garowga saad uga furan yahay waysaga yeelkiisa wasalaamu calaykum waraxmatullah qadiyadana dhinacan kaga shabahayaana waxa weeye aan uga ekaysiinayaa qadiyada waxa weeye dadkeenan culimadeenu inay door ku yeeshaan in ummadan deegaankan degan ay ka baxaan khalkhalka siyaasadeed ee lumiyay waxa weeye mustaqbalka yiigsan lahaayeen ama ay maamulada inagu xigaa hadda ay gaareen waayo waxaan milicsan karnaa qof walba bidaac ka muuqda deegaanadeena weli waxaan ku jiraa maartay xuruub iyo inay nahay dad la isku haysto oo deegaamo kale isku haystaan la kala jiidanayo isla markaana dadka aan wax nafci u haynin ummadeena dalkooda ay yihiin dadkoodii dhulkooda dhistay horumarkoodii ka tashaday jaamacada samaystay da'yartoodii horumariyay inagana da'yarteena ay ku dambeeyaan weli khalkhal siyaasadeed iyo lacag yar mar boqol in la siinayo waxaan mar labaad ku faraxsanahay in wax la iska weydiiyo laga wada hadlo waliba su'aal ugu muhiimsan ee mawduucan hadda ka dhex dhacday anaa ugu farxay waxa in culimada la weydiiyo warata ma ogol laha in dalkeena la difaaco inaynu deegaankeena difaacano oo cid kasta oo ina dulminaysa noocay doontaba ahaato ama islaamka ina la sheego ama si kale baan soo galle cid kasta oo ina dulminaysa inuu iska difaacano diinteenu maxay ka qabtaa runtii waa su'aal aan ugu farxayn la isweydiiyo waayo deegaankeena waxaan ognahay inaan colaad soo marnay badan oo ay nagu dulminayeen dadka maaragtay aan deegaanka wadaagno aan dariska nahay dulmi cad oo bareera waxaan ognahay in boqolaal da'yarteennii ay ku dhinteen ku nafwaayeen
waxaan xasuusanaynaa oo garanaynaa in badan oo culimadeena deegaan ka mid ah inaan arrinkaani ka hadlo waxaa walaaba yaraata ay ka aamuseen in marka dee qoladaasi ama dadka culimadii maanta ay caddeeyaan arrinka hadday hore uga aamuseen sababkay uga aamuseen imaa inay aaminsan yihiin inuu waxaan wax bannaan uusan bannaanayn dagaalkani iyo imaa inay dana kale oo ay ilaashanayaan uga aamuseen labadaa mid bay noqonaysa in markaa fakarkaa la helo aad baan ugu faraxsanahay mowqafkayga ka cabdiraxmaan ahaan iyo ka culimo ahaanba kulley culimada aan ka tirsanahay waxaan qabaa sidii sheekha iga daaweynba uu ka dhawaajiyey soo qaatay xadiiskii ahaa man qutila duuna ahlihi wa maalihi wa nafsihi fahuwa shahiid qofka la dilay isagoo ehelkiisa difaacaya naftiisa difaacaya howlihiisa difaacaya waa shahiid wey waxaan qabaa anigu fakar ah waxaynu nahay dad ku dhaqan deegaano fara badan waxaynu nahay beelweyn baynu nahay waxa weeye haddii aynu isku tashano horumar baynu gaari karnaa waxaan qabaa anigu inay ayna wax shareecada ayna ku bannaan ahayn in ummad meel degan ummad kale ay dulmiso ay kusoo duusho iyagoo weliba dadka ay kusoo duulaya ay yihiin dad maaragtay dee askari qor loo soo reebay oo faasiqa addoon ilaahay baa aqoonin inuu xoolaheennii iyo xurumaadkeennii iyo wixiinni baynu gacanta u gelino waxaan qabaa anigu shareecadeena islaamka inay ku bannaanayn ee ay bannaan tahay inaynu iska difaacno awooddeena ayna hola harin waa ka baxay asalaamu calaykum shareecadu ka dhalagsan si wacan loogu tilmaamo oo culimadii ugu horreysana shay tilmaamaysa qofku marka uu yahay qof la soo weeraray inuu isdifaaco inuu xaqu leeyahay iyadoo ay culimadu dawaabigu dhigeen oo qof wixii uu marba kaaga tegay wariga tagay haddaad tahay duu kaa tegay ul haddaa u qaadid iyadoo ay steep tahay oo aan markiiba adoo ulku baacsan kara aadan xabad wadnaha kaga soo saaray dee difaaca shareecadu guud ahaan way farta waxaan kaloo ku noqonayaa ayagu kolle waxaad moodaa qolyahaas daadada iga horreeyay hadalkaan kaftanay xoogaan waxbaa nalagu soo yeelaya waxaa la yidhi lama hadliji waa kulankii ugu horreeyay dhexmara culimada awdiinka gobolka Cayn iyo madaxda Khaatimo waxaana madaxweyne Cali Khaliif maanta qadashada u sameeyay culimo awdiinka ku dhaqan gobolka Cayn oo iyagu halkaasi kulan ay ku wada qaateen.